waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta ka dhacda Nairobi maandhaweyd arrin foolxun oo gabdhaha meel inta iskugu keeno oo nimanka laga gadanayo waa arrin aan aad uga kululaanay dumarka Mandera daan ahay madaxda Mandera ma hubna inay gabadha Mandera ka imaado laakiin si la sheegay saas baana lagu yiri meel ay ka imaadaba gabar Soomaaliyeed muslim ah diinteen islaamkana annagoo aaminsan oo na ku dhaqanayno dhaqan Soomaalina aan leenahay taasoo kale horta waa arrin foolxun ay ahayd islaanta suubisana waa maamo Soomaaliyeed waxa uu geeyeen anaga ma garanayno laakiin arrin xun waaye nimanka gabdhaha jirkooda ayagoo yar 14 jir isticmaalayo oona uur u yeeray waa arrin xun gabdhaha way la dhasheen wayna dhaleen wayna qabaan badanaan waxa keenay waa nimanka gabadha si la sheegay nin Yurubka imaadaba uur u yeelay oo ninka islaanta la dhashay laakiin si ahaataba vocational marriage ay dhahan nimanka holiday inta u imaadaan gabdhaha haleynayo ka tagay hooyooyinka waxa u sheegi lahaa si kastoo wax lagu shubo gabdhihiina nimanka Yurub nooga imaanay Mareykan iyo meel walba oo nooga imaanay inaan iska ilaalino horta koowi mas'uuladii nalagu lahaa diinta islaamka na farayso kama soo bixayno ilmaheena ma iska ogolana inay holiday aadaan waxyaalo badan aan keenan asbaabta keenta koowi waxa way horta saboolnimada gabadhi waxa xidhiisa hooyo ma ku soo shaqeynaya isa qof qaraaba ka wadanayo gabadhi waxay ku sugantay ma ogo xaaladeeda ma ogo gabdha Nairobi waxa jira guri iska kareysana kaligood iska degan marka waxa soo kale mas'uulada koowna saaran waxa way ilmaheena meesha u diray inaan ka fiirsano gabadhaada kula joogto darkay ku soo shaqeynay ku leeyahay haddaad gaajaysantahay isla gaajooda isla jooga ilaahay dhibkaas uu ka bixinaya laakiin gabar kaligeed la fasaxayo diinteena ma ogolo dhaqanna uma lihin anaga gabdhaha waxaan oga bixi karnaa waxa way gabadha mashquul ah dugsi geey madrasa geey waxa ku barato xirfad gacmeed bar countiga waxa soo kale polytechnic ay qabaan oo gabdhaha waxa ay ku bartaan gabadha wax bar hadii kale nin u guuri marka waxa waaye ilmaheena mas'uuladana saaran horta aan ka soo baxno annaga waalidka naftigeena aan ogaana diinta islaamka waxayna farayso mid dadka kale u sheegay waxa waaye culamaa u diinta in ay wacyigeliyaan waaye masaajidaha ay ka sheegaan diinteena hadii aan si fiican u raacno waxyaalo badan aan noo hagaagi lahaa waxaan oo kale waa foolxumo ceeb weyn waaye inay Mandera magaalada ka dhacaysaba ma ogin anaga iska dhaaf meel kale inay waxa laga yaabaa ay gabdhaha meelaha lagu iibsanayo inay Mandera magaalada ka jirto taasna waa anaga dhan wada saaran dariska hadaan ogaano in ay wax si kale ay suubinayaan mise ay meel dhalinyar iyo gabdhaha ay ku mashquulsan yihiin waa inaan soo report gareynaa culimada u sheegnaa booliska u sheegnaa waxaan kale aan iska reebi karno waxyaalo badan xuquuqda bini'aadamka ka soo horjeeda yaa jira marka waxaan jeclaan lahaa culimada inay dhinacaasna aad iyo aad xoog u saaraan maamooyinkana ay fiiriyaan jaahilnimada baa noo keenaya inaan diinta wax ka barno wacyigelis aan ku soo bilaa mar walba baraadhis aan u soo bilaa aabayaashana inaan caruurta hooyooyinka kaliya aan ku dhaafin waxaan aragnay bariyahan badana 90% dumarku ba shaqaysanaya hooyadii waxay ilmaha uga halaawayaan mise uga toosayeen kama warqabto guriga aroortay kale aysan habeen soo galaysa guriga wax ka dhacay ma garanayso mas'uulada ilaahay idin saarana rago Allah idin tuso dumarka wax la qabta caruurta hadaad shaqeynayeen inay maamada shaqeynaysana guriyaha fadhiya caruurta ilaaliya hooyada la fiiriya caruurta mas'uuladaas kale hadii aad iska wareejiseen mid ay qaban lahayd la qabtan lahana noo fududeeyo kulli kuma dhahayo mas'uuliyadana waan ka soo baxnaa ma dhihi kari laakiin shaqo weyna noo dhiman laakiin kaligeena wax ma soo bin karno bulshadii aan isla jirin community bulshada aan isla jirin hooyooyinka aan iska warqabin wax noo hagaagi kara ma leh hadii on raadino ma helayno waan ogahay laakiin waxaan u sheegay hadii hooyadaas mise qaraabadeeda inay dhageysanayaan garabkooda nahay inaan gabadhaasna wax kala qabanno ayadana mustaqbalkeeda soo noqon lahaa aan fiirino insha Allah